ciidanka booliska degmada Wajaale oo heegan ugu jira ilaalinta nabadgelyada degmo xuduudeeda Wajaale ayaa waxay soo qabteen 246 litir oo khamriya waxaana ciidanka booliska degmada Wajaale maanta ku soo bandhigeen saldhigga degmadaasi waxaana khamrigan la soo qabtay ka warbixiyay taliyaha saldhigga degmada Wajaale laba xidig la Nimcaan Maxamed Jaamac lixaad 20 saldhigga degmada Wajaale isagoo haashanaya xogaa oo helay iyo ka umad iyo shacabkiisa wanaagsan sida fiican ula shaqeeyay isagoo adeegsanaya ayaa waxaan ku helay xog inuu khamriga talaabayo iyada bariga magaalada kadib markii ay ciidanku ka hawl galeen hawlgalkaasi soo qabteen khamri tiradiisu dhan 246 litir kaasi oo la soo geliyay wadanka oo xadka laga soo talaabiyay laakiin xadka markuu 5 talaabo soo dhaafay ama maanta ku dhignay eedaysaniina uu Itoobiya baxsad ku galay kuna daba taaganahay oo maamulka dhinaca Itoobiya kala xiriirayno sidaan ugu qaban lahayn khamrigaasi tiradiisu waa 246 litir khamrigaas oo la doonayay in Soomaaliland hore la geeyo aanu sheegaya dadka mukhadaraadka ka shaqeeya dadka wadanka hagardaamada u geysanaya inaanu habeen iyo maalin u taaganahay sidii aanu wadanka uga badbaadin lahayn iyagana aanu sharciga la tiigsan doono digana waxaan horgeey doonaa maxkamadda ayana go'aan ka soo saari doonta hadii Ilaahay dhaafo dad uga jeedinaya shacbi weynaha degmada Wajaale oo si wanaagsan oo qurux badan nolosha hadii ay tahay khamri iyo hadii ay tahay dhigla fakanaya iyo hadii ay tahay hawlo kalaba waxaan u jeedinayaa mahadnaq ballaaran baan u jeedinayaa sida ay shacbi weynaha degmada Wajaale nolosha shaqeeyaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaya annaguna har iyo habeenba waxaan u taaganahay wax kasta oo qaranka lid ku ah ama dhibaato u keenaya shacbi weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu gacanbira ku qabanaan diyaar gudoomiye ku-xigeenka degmada Wajaale Mursal Nuux Usmaan ayaa sidoo kale fariin u diray dadka ku fogan ka ganacsiga khamrigan biliiskan hambalyeynaya hawlgala saldhigga Wajaale waan hambalyeynaa maantii waxa dadka saaniminka khamriga horteena yaala imika mar dhaweyd baa soo qabtay khamrigaasi waxa la doonayaa in lagu khalkhalgeliyo nabadgelyada oo loo gudbiyo dhinaca Soomaaliland ayaa runtii la doonayay markuu sida xadka uga soo talaabay ay ciidanka biliiskuna ku bixinay hawlgal ku sameeyeen adaysanihii wati xagga Itoobiya u cararay khamrigina waa soo sida taliyuhu sheegay waa 246 litir weey ana la doonayo in loo waarido xagga caasimada oo la doonayo in nabadgelyada lagu khalkhalgeliyo taliyaha saldhigga hadaan maamulka Wajaale nahay waan amaanana runtii sida uu habeen iyo maalinba eeganka ugu yahay waxa weey cid kasta oo nabadgelyada khalkhalgelinaysa waxa weey uga hawlgeliyo gacanta ku soo dhigayo ahantii dadweynaha shacbiga degmada Wajaalena ee sharafta leh ونحن هذا مامور هاي سيد بريس كولا شقينا يعني مامور كوجبا فرحان عبد العزيز هونكيبل تي في دقمة وجالة shirkadda dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amaba goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-dahab